شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنذير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى ha idin barakeeyo meel walbo aad maaragtay muuqaalkan ka daawanaysaan. الزكاة baan gelina insha Allah tabaaraka wa tacaala. horta الزكاة luqada maxaa lagu yidhahdaa النماء والتطهير بمعنى الزيادة والطهارة. نماء kuusha wuxuu ku leeyahay النماء معنى wuxuu الزيادة waa wixii uu maalkii oo ziyaadayo, maalkii oo batay. qofku markuu zakada ka bixiyo maalkii oo u badanayo, ilaahay u barakeenaya. iyo wadahaarati qofkii baa tadhiiru nafsi, naftii baa u noqonayso mid maaragtay u ah nadiifa. oo qofka markuu maalka wax ka bixiyo, ilaahay dartii u bixiyo, waxaad dareemaysaa in uu qofkaas naftiisii uu ilaahay tabaaraka wa tacaala weliba qur-aanka waxaa ku qoran oo kitaabka ilahay tabaaraka wa tacala ka helaysaa zakada dhowr meel baa kusoo aroorta. alladii yu'tii maalahu yatazakaa, midka maalkiisa bixinayo, yatazakaa ay yataqarab ila allah, ilahay buu u dhawaanayaa wey. marka zakada la bixiyo, abubakr sidiiq radi allahu tacala canhu hantidiisi o dhan buu ilahay u bixiyey. ya ilaa waabihii ku yidhi aabow, xataa haddaa wax bixinaysid maad siisid kuwa maarata beri ka maalin kuu abaalgudayo. ilahay muxuu yidhi qur-aankiisa, uma bixinay ila ibtiqaa'a wajhi rabbihi lacla, inuu ilahay tabaaraka wa tacala raalligeli u bixinayaa. ilahayna muxuu yidhi walasawfa yardaa, wuxuu noqon doonaa mid raalli ah oo raalli baan ka dhigaynaa. marka aayadahaas alladii yu'tii maalahu yatazakaa wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujza, aayadahaasoo dhan waxaa lagu ammaanayaa sayidkeenna abubakr sidiiq radi allahu tacala canhu ardaa. zakada aayado kale ku soo arooray oo leeyahay ammaan, falaa tuzakuu anfusakum, naftiina ha ammaanina, huwa aclamu biman ittaqa, ilah baa idinka yaqaano. marka qofka markuu is ammaanin ayadoo la soo qaataa. marka almuhiim waxay kaloo qur-aan kusoo aroortay zakadan ayadoo ay tahay sadaqa. khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum, ayadana sadaqa mar loo isticmaala. marka saasaa lagu yidhahdaa xagga luqada. sharcigana waxaa lagu yidhahdaa waa xaq lagu leeyahay fii maalin khaas, maal khaas xaq lagu leeyahay, la siinayana lidaa'ifatin makhsuusa, dad gaar ah oo 8 asnaaf 8 nooc oo dadka ka tirsan ayaa oo fi suura tawba ilahi tabaaraka wa tacala ku sheegay ayaa iska lilfuqaraa'i maarata masaakiin. dadka qur-aanka suura tawbaad garanaysaan 8daas nooc. hadduu qofka laga helo shuruudahaas wuxuu xaq u leeyahay in zakada la siiyo. su-aal baa isweydiinaa marka, zakada ma siin karaa aabbahi? zakada ma siin karaa ilmihi aan dhalay? zakada ma siin karaa xaaskayga? zakada ma siin karaa walaalkay? zakada ma siin karaa adeerkay? zakada ma siin karaa habaryartay? zakada ma siin karaa qaraabada kuwa igu dhiro? waa la kala qadqaadaya marka. horta zakada kuma baxdo aabbaha oo nafaqo kugu leeyahay. aabbaha aa ku dhalay zako inaad tiisi waa mamnuuc wey. wiilkaaga aad dhashay wuxuu sii dhalay ayaduna waa kaa mamnuuc. fakadalik gabadhaada waa ka mamnuuc inaad siisid. mar dhexdaasa waxaa la weydiinaya su-aal saan oo kale maalinta aan u sheegay, waxaan ku baabu zakaad baa noo soo dhow. wuxuu igu yidhi ma siin karaa zakada walaalkay la dhashay ma siin karaa zakada? haddii sharciga loo dhaqaaqa nacam, walaalkaa kula dhashay oo faqiir noqday oo fallisay oo kacay oo waxbana haysanin, zakaatulmaalkaada waa siin kartaa. laakiin alcaqli walaalayaal waxaa idin weydiiyey oo aada idin weydiinaya, soo ceeb ma aha ceeb
walaalkaa kula dhashay hooyada aabaha ilaa ama walaalkaa hooyo kula ama aabba kula dhalay inaad zaka maxaa liya waa sadaqa waa inaad walaalkaa tira sadaqaan siinaya ma banaantaa ka war soo ceeb ma ah inaad tirahdo walaashay ma siiya sadaqada ma ii banaantaha walaashay xaliimo cabdiye sacdi la dhalatay maalkayga anoo taajir ah walaashay ma siin karaa zakadii waa ceebun calayk waa ceeb waa wallahi billah waa aniga kolley shakhsiyadan waa ceeb baan u arkaa way bannaan tahay laakiin waa ceeb walaasha kula dhalatay ee aabbaha iyo hooyada dhalay ama abtiga waxaan ka wadaa ama walaalkaa kula dhashay inaad tirahay zaka ma siin karaa adigoo hanti haysto waa ceeb waxaa fiican inaad maalkaaga siisid maanta meesha uu joogo hadda adigu joogileed ka war oo ku dhaho waxaan ku siinayaa maalkayga sanadkii waxay ka soo wareego sadaqadii nabi maxamed sadaqa ma cuni jirin salawaatu rabbi wasalaamu calayh nabiga sadaqa ma cuni jirin marka waxyaala waxaa jira laga yaqiiqsoodo inuu qofka yidhahdo walaal ma siin karaa aabbahay sadaqa ma siin karaa aabbahay zaka ma siin karaa ma siin karaa abtigay nacam ma siin karaa walaalkay abtiga way ku bannaan tahay ma siin xataa abtiga inaad wax fiican abtiga inaad sadaqa siisa ma ah dadka ehelkaaga ah ee qaraabadaada ah sadaqada inaad zaka siisa ma waxa ku fiican inaad maalkaaga nin la yidhahdo nin carabta ka mid ahaa nin iyo walaal baa wada dhashay magaciisa waa nin aad waxaa weliba boorta lagu qoraa walaashii oo baahan baa u timid oo cayr ah aad u baahan oo ziira ah markaas geel badan buu lahaa waxay ku tiri sakhr bale ninka sakhr haa sakhrow waxay tiri maanta waa fara marana oo maxaa rabtaa hanti baan kaa rabaa waktiga zakadaa la joogaa marka wuxuu awooday inuu yidhaahdo maalkayga zakada qaado waana ku baxdaa wuxuu yidhi ninkii shaqaalihiis wuxuu yidhi xoolihii soo wada caruuri buu yidhi xoolihii dhan baa la keenay wuu kala baray wuxuu yidhi walaashay xoolahayga soo maha middaa doonta qaado xoolihii bay qayb didsatay intay rabtay qaadatay weliba intuu kala bara bar qaaduu yidhi barkii bay la kacday muddo kadib bay kusoo laabatay waxay ti walaalo xoolihii haddana waa iga lacdeen waa iga baaba'een xoolaan kaa doonaya haddana intuu iskugu yeeray xoolihiisii ayuu kala baray ayuu yidhi qayb qaado walaal saasaa loo baahan yahay qofka walaalka oo kula dhashay inaad tirahay zaka ma siin karaa anigu kulley shaksiyan kulama taliyeen way ku bannaan tahay sharciga islaamka ogol yahay inaad walaalkaasi zakadiisa ku bannaan tahay inaad gabadha kula dhalatay marka nin kale wuxuu yidhi walaashay oo nin kala qabo walaashay oo nin kala qabo oo ninkeeda waxbana haynin ma siin karaa zaka nacam horta ninka walaashaa qabo asagaa mas-uulka walaasha oo asagaa mas-uuliyad saaran tahay inuu ama hala boodboodo ama hala dhacdhaco laakiin adigu ha kuu soo cararin zake walaasha waa walaasha kula dhalatay wax sii oo gacantaada sarraysee ilahay tabaaraka watacala ugu dhawow oo ha siin zaka u siina sadaqa haga dhigin waad og tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam markii loo keeno hadida uu qaadan jiray laakiin sadaqadu iska fogeyn jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka iska fogey sadaqada marka aan usoo laabto hadalkii ahaa ma bannaan tahay zakada in la siiyo walaalka nacam way bannaan tahay walaalka oo faqiir ah oo waxban haysani way bannaan tahay walaasha oo faqiira way bannaan tahay laakiin ilmaha dhashay ma siin kartid ilmaha dhashay zaka ma siin kartid aabbaha ma siin kartid hooyada ma siin kartid aabbaha aabihii ma siin kartid hooyada hooyada ma siin kartid waxa way xaq bay wax zakada ka weyn bay kugu leeyihiin aabbaha aabihii adigu dhacaankiisi baa tahay aabbaha aabihii adigu dhacaankiisi baa tahay xaq ka weyn buu kugu leeyahay zakada ilmahaagana xaq ka weyn buu kugu leeyahay zakada marka ma u baahna kuwaas in la zaka siis zakada yaa la siin karaa marka zakada waxa culimada marka sheekh Uthaymeen raxmatullaahi calayhi wuxuu leeyahay aabbaha oo deyn lagu leeyahay ma siin kartaa zakada way bannaan tahay laakiin aabbahay oo deyn lagu leeyahay inaan siiyo zako waxaan ka jeclahay aabbahay in aan wax ka bixiyo aabbahay oo deyn loo haysto aniguna taajir baan ahay wallahi ceeb calay ceeb bay u noqonaysaaba aabbahay oo maan deyn kulati lagu dhagan yahay in anigana zaka ka siiyo kole waa qof mangaaba waay oo aad xaqiiqatan anigu caybaan u arkaa inay tahay taas marka ha ku xoos wareegaysanina ama yasadin aabbahay zaka ma siin karaa walaashii zaka ma siin karaa abtiga waa siin kartaa abtiga zaka waa ku baxdaa way ku baxdaa habararta eedada way ku baxdaa familkaada weliba nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam zakada la siiya abtiga iyo zakada la siiya habaryarta iyo zakada la siiya eedada waxaad ku helaysaa laba ajir ajirka koowaad waxaa waaye zakada oo bixisay iyo sila qaraabadood xiriiris laba ajir baa helaysaa marka ajirkii koowaad ood ku heshay habarta ood siisay zakadaadii ajir baad ku helaysaa iyo qaraabo xiriirinta marka zakada la bixiyo saas waxaan kaloo rabaa inaan kaga faa'iisto zakada la bixinaayo dadku qaar baana zaka waxaa laga inay isku gaargaartay aana ka warqabin zakadu xoolaha waxaa loo kala qaybiya 4 geela ariga lo'da iyo waxa beeraha soo baxo geela maxaa laga bixiyaa ariga maxaa laga bixiyaa lo'da maxaa laga bixiyaa geela hadduu 5 halaad gaaro 1 2 5 halaad hadduu ilaahay ku siiyo 5 ka mid ah 5 halaad hadduu ilaahay ku siiyo
waxaa lagaa rabaa zako. ariga hadduu gaaro 40 waxaa lagaa rabaa zako. ari baad leedahay 40 ari hadday kuusoo xarooto zaka lagaa rabaa. lo-du waxaa lagaa rabaa haddaa 30 lo ah ay ku xariisan tahay waxaa waajib ku inaad zaka bixisid. okay waxaa ku saartay dahabkii iyo fidadii iyo lacagtii. culamadu waxay dhahaan dahabka iyo fidada iyo lacagta, dahabka hadduu gaaro, dadku aad weli gabdhaha haddaa dahab aad ku xaragoonaysa ama guriga kuu yaallo uu dahabkaas gaaro 35 garaam, 35 garaam oo dahabka ah hadduu guriga kuu yaallo waa la yaqaana intuu yahay, waxaa lagaa rabaa inaad zaka bixisid. 2.5 baa la bixinaya. 2.5 waa lagu xisaabinaya dhimale, waa calculated, waa qof walba yaqaana sida loo xisaabinayo. marka hadduu uu gaaro 85 garaam, halkaas waxaa lagaa rabaa dahabka waa inaad bixisid. okay dahabka ma midaan ku ganacsanayaan ka bixinaya mise kiyaan ku xaragoonay? umu salama radiallahu tacala canha nabi calayhi salatu wasalaam xaaskiisana ahayd waxay leedahay jijimo fara badan iyo maxaana baalkan dhega fara badan iyo baaladan gabdhaha luqunta ku xirtaan oo fara badan baan lahaa. nabi waxaan ku yidhi nabi allow kuwaan aakhira la isku cadaabayo kuwaan miya haddaad ka bixisa buu yidhi zako kuwaan dhib kaasoo gaari maayo. marka dahabka lagu xaragoodo hadduu kuu gaaro 35 garaam fa calayki waxaa waajib kuwa an tadfaci inaad zaka ka bixisid. fakadalika alfida, fidada oo silfarka ama qalinka loo yaqaano 200 oo dirham baa lagu qiyaasaa. waa 40 marka la isku dhufto 40 ah 200 oo dirham. marka la sii wado waa 500 oo garaam. 500 oo garaam oo qalin ah waa 500 oo garaam oo qalin ah. 500 oo garaam oo qalin ah ayaduna waxaa lagaa rabaa inaad ka bixisid zakada weeyaan. aan usoo dhaqaaqna beer baan lahay aniga, nin beeraley baan ah, saan u bixinayaa xadiiskana u tagi doonaa. 5 rati waa kow rati baa buuxsamay, rati kalaa yimid waa la buuxiyey, mid kalaa yimid waa la buuxiyey, mid kalaa yimid. 5 rati hadday buuxsanto waa 5 rati hadday buuxsamaan waxaa lagaa rabaa inaad zaka bixisid. okay ayadu zakada marka qaabka loo bixinayo waa in maalka oo kale aad zakada geela, lo-da, arig waxaas oo dhan intaa sheegnay iyo dahabka waa inuu ka soo wareego maxaa sanad haddaad haystay 85 garaam oo dahaba guriga kuu yaallo ama lacag u dhiganto, tusaale ahaan lacag u dhiganto 85 garaam, tusaale gabaran ku siinaya waxaa kuu taalo guriga 2,000 ama 3,000 ama 4,000 oo dollar ama 4,000 oo euro ama 4,000 oo pound. 4,000 oo pound ayaa guriga kayd ku taalo ama bangi kugu jirto. waxaad tegaysaa suuqa dahabka waxaad habloy dahabka maanta meequ marayaa 85 garaam meeqa wey walaalay 85 garaam waxaa wey waa 5,000 oo dollar, waa 3,000 oo dollar, waa 4,000 oo dollar. waxaa sanad buu marka kula ag taalay, waxaa lagaa rabaa zaka weeyaan, zakaad ka bixinaysaa. xoolihii baa kuusoo waxaan ka wadaa xoolihii waa sheegnay. waxaa kuu soo haray walaalkay gacaliye beeruhu beerta waxaa loo kala qaybayaa 2. beerta aad leedahay haddaad ku tacabta adiga oo dhiidkaagi iyo shaqo aad gelisay 10 meelood wixii ka soo baxo 10 baa loo xisaabinayaa. 10 meel markii loo qaado meel ka mid a la kala baraya, nis baa ka bixinaysaa. wixii soo baxay meesha ka soo baxay 10 meelood ayaa meel, maadaama haddii aad shaqaysatay oo dhiidkaagii aad gelisay oo qarash aad gelisay oo wax ku samaysay 10 meelood meel ka mid a nis la bixinaya. okay waa middaas. mar kalaan ku noqonayaa kitaabu zakaad baan ka hadlayna. walaal zakada waxaan nidhi waa xaq lagu leeyahay qofka saaxibulmaalka ah. asagana waxay u tahay tadhiiran linafsihi, naftiisa ayay u tahay. maalka markuu ka bixiyana ziyaada ku timaado oo u ziyaadaya maa naqasad min maal. nabiga calayhi salaatu wasalaam asaga lahaa maal sadaqa laga bixiyo ma nusqaamo. maal sadaqa laga bixiyo nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam asaga lahaa maal sadaqa laga bixiyo marnaba kuma timaado nusqaan, marnaba kuma timaado nusqaan. waxay u tahay qofka mu'minka ah, waxay u tahay salaada tukado uu la yimaado qofka salaada waa cibaada bayna alcabdi wa rabbi, asaga ilahay bay udhexaysaa. amaa zakada uu qofka la yimaado waa bayna asaga iyo maarata dadkii uu la macaamilaya khalaa'iqdii kale, oo dadkii markuu wax siiyo masaakiintii wax siiyo way u jeclaanayaan oo ayakana maaratay waxay u tahay qalbigoodu buu hananayaa wey. zakadu dadka inta badan ma baxshaan oo way ku raagtaa, aad bay ugu raagtaa. sida awadeed maadaama uu khadka marka hore iga go-ay waan kusoo noqonaya si markaas hadalka isku raaco. zakadu waxaa niri walaalayaal waxaa la iska rabaa geela in zaka laga bixiyo, arigii, lo-dii, dahabkii,
fidadii lacagtana waa lagu daraa. sidoo kale waxyaalaha beeraha ama dalaga soo baxo, waxyaalaha sidoo kale curuudul tijaara, waxyaalaha ganacsiga, tusaale ahaan baabuur baad ka shaqaysataa, guriyaad kala gadaa, waxaasoo dhan ayakuna way soo gelayaan in laga bixiyo zakada. zakadu marka waa zakaatulmaalka oo kale waa inay kasoo wareegto sanad, waa inuu qofkii maalkii uu kasoo wareego sanad. ama beerihii ayaku markay soo go-aan baa markaas la xisaabtamaya. waxaan soo sheegnay oo mar labaad ku celinaynaa, geela markuu 5 yahay asaga waxaa laga bixinayaa zako, ariguna markuu 40, lo-duna markay tahay 30 nisaabka markay gaaraan. waxaanu kaloo soo sheegnay dahabku 85 garaam markuu gaaro. fidaduna waxaan soo sheegnay inay tahay 200 oo maaragtay adigu dirham, laakiin marka laga dhigo loo wareejiyo dhinacan garaamka 500 iyo dhowr garaam buu noqonayaa. markuu 500 iyo dhowr garaam gaaro fidada ayaduna ama silfarka intaasaa laga bixinayaa. inay maaragtay xoolaha waxaan ka wadaa beerta markay soo go-do ayadu waxaa weeyaan waa la fiirinaya. haddii wax kaa galeen oo qofka qarash iyo hanti fara badan ay uga baxday oo ase wax galeen, markii 10 meelood meel ka mid a ayaa maarata niskeed ayuu bixinayaa. ama sida kale haddaan u dhigno, haddii balli ama roob ku yimaado ama maaragtay kanaal usoo furo 10 meelood meel ka mid uu bixinayaa. inkastoo sida kale marka loo dhigana nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam 5 rati oo markaas ay buuxbuuxdaan markay imaadaan, asaguna maarata waxaa laga rabaa inuu qofkaas ka bixiyo maalkii ka zakeeyey weeyaan. waxaa jirta oo xadiiska noogu imaanto nabigeena calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday, arrikaaz waxaa la yihahdo. rikaaz asagana khubus baa laga bixiya. rikaazka maxaa la yidhahdaa? meel dad ay deganaayeen, weliba dad gaalo ah markaa lagu sheegaa, kayd baa u yaalay, kaydkoodii bay markaas lacag ba u taala ama dahab baa u yaala ama fida u taala, mudda wax u yaaleen, adigoo iska socdaa meesha ku timid, meeshaas 5 meel yaad maarata meel ka bixinaysa. 4 kale 5 meelood 1 meel baad maarata ka bixinaysaa, 4 kale adaa askal ayadana u tagi doonaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala. haddaan dib usii noqdo, waxaan idhi wixii waa inay sanad kasoo wareegaan. haddii noqon lahayd dahabkii oo kale inuu sanad kasoo wareego, baabuurta la kala gadanaya. ama baabuurkaaga adi awadatid zake ma ka bixin kartaa? waa maya. baabuurka adiga iyo guriga adaa degan tahay, iyo ilaahuma gurigaaga intaasuu malaayin ahaado, baabuurkaaga intaasuu noqdo, wayna u tegi doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala. wax zake ah ood ka bixinaysa inaba ha yaraatee ma lahan. ama wixii ganacsi ku saabsan fa calayka inaad ka bixisid zake walaalayaal. zakadana waa rukni min arkaan islaam, waliba rukni weyn weeyaan oo arkaanta qofkaas tiirar ka mid ah. qofka zakada iyo maarata aana bixinin maalinta qiimaha cadaabba u dambeeyo, fabashirun bicadaabin aliim. ilahi tabaaraka wa tacaala asagi lahaa kuwa kaydinayo maaratay dahabka iyo waxaas oo dhan ilahi tabaaraka wa tacaala wuu u goodiyey. marka waxa intii aakhir lagu cadaabi lahaa, intii adduunka aad joogtid inaad bixisid bay ku fiican tahay. maxaa yeele adduunka waad ka tegaysaa, hantidaana dadka la maarata ku takrifalayo adoona ka bixinin zaka weeyaan. marka aynu is ilaalino oo aan zakada iska bixino. 2 iyo bar baana la bixinayaa markay noqoto xisaab ahaan, waa inayna sanad kasoo wareegto. culummada kugu dhow markaas aslada ahlu cilmigana la kaasho oo ayaka maaratay la kaasho wey. almawaashi waan sheegnay, geeli iyo arigi iyo looda ayakana wax laga bixinayo markay gaaraan weyna. marka kitaabka baan iska bilaabana biidni illahi tabaaraka wa tacaala. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الله كان نقضي قال وحوير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام حكي لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن. النبي عليه الصلاة والسلام وحال الشقاء يمن بارك إمادين مركا رقاس. أما النبي عليه الصلاة والسلام يمن بقدري ما دام وقف فقيها وأعلى أمدا أنه قفك حارانتي حلاش آذوك ليقانه. النبي محمد عليه الصلاة والسلام باوحو درس حق أيوه إلى أرض اليمن بقدرس أمارة يمن بقدر النبي عليه الصلاة والسلام. النبي مركا عليه الصلاة والسلام ماشي قدريو هذا خبر كيدو سين ربا إنك أدقى ستأتي وحأتقي دون الله كل ميسا قوما ضد الله كل ميسا أهل كتابه ضد أهل كتاب الله كل ميسا. فإذا جئتهم هذا أتكتت فادعوهم وحد أويرتا إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كو ضدك أتقي دون تحيك أوير وإلهي تبارك وتعالى كحر. إلهي تبارك وتعالى كحر وحدانية دي لأن محابة زكاة بحياء أما الله صوماء أما الله صلاة أما الله حجية هدام بفوري إسلام كقعدت لقوهن. كلمة هو مفتاح وحو الباب ومارت مفتاح الجنة ويان وأنا كلمات ذو قيم بضن قفك إلى مخلصا من قلبك إذا كسو قدنا إلهي تبارك وتعالى جنة ديسة أيوبين إلهي تبارك وتعالى قليه ولو حتى نارها لقليه. فإن أضاعوهم لذلك
fain adaacuuhum laka bidalika haddii arrinkaa kaa aqbalaan miya faأkhbirhum waxaad u sheegtaa ana allaha ilahi tabaaraka wa tacaala farada calayhim wuxuu ku farad yeelo ku waajibiyey 5 salawaatin fi kuli yowmin walayla in la tukado 5 salaadood iyo habeenkii iyo maalinkiiba in 5 salaadood tukado in ilahi tabaaraka wa tacaala ku waajibi u sheeg fainhum adaacuu laka bida haddii arrinkaas kaa aqbalaan miya faأkhbirhum waxaad kaloo u sheegtaa ana allaha ilahi tabaaraka wa tacaala qad farada calayhim sadaqatan in ilahi tabaaraka wa tacaala ku waajib yeelay sadaqada waa soo sheegnay zakada waa loo isticmaala magacyaas way leedahay wey waa lagu idlaaqaa wey zakadaasoo tuukhadu laga qaadaayo waxaa laga qaadayaa min agniyaa'ihim kuwoodii wax lahaa kuwii lacagta lahaa kuwa haystay baa laga qaadayaa oo waa annaka soo sheegnay wixii aan soo sheegnay oo hadduu geela intaas gaaro ama ariga 40 gaaro zaka laga rabaa wey marka zakaatul maal waa inaad bixisid wey marka tuukhad waxaa laga qaadaya min aqyaan kuwa wax haysta laga qaadaya oo faturaddu waxaa lagu soo celinayaa calaa fuqaraa'ihim kuwooda baahan waa la iska bayaa wey adigu dariskaaga inuu baahan yahay adiguna caloosha ku buuxdo cayb calayk waxaa weye laga xumaado wey islaamka marka waxaad dareemaysaa inuu maaragtay taraaxum iyo tacaaduf muu ka dhexeeya dhexdooda weeyaan fa inhum adaacuu laka bidalika haddii arrinkaas kaa aqbala nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo hee oy kaa ogolaadaan hee fa inhum adaacuu laka bidalika waxaadana waxaa leeyahy fa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim waxaad iska ilaalisaa oo lagaaga digayaa xoolahooda kuwa oo maaragtay aad iyo aadka isku jeclaysiinayaan oo xaggooda kariimka ah oo xaggooda ka wanaagsan ka carar oo markaad zakada ka qaadaysid tusaale ahaan 5 geeluu leeyahay in laga qaadaan rabaa ha ka qaadin maaragtay midka ugu doorka roon oo ugu wanaagsan oo uu ku dhaarto ha ka qaadine waxaad ka qaadaa mid dhexdhexaada midka liitan ha ka qaadin mar walba sadaqada marka la bixinayo zakada laga qaadi maayo qofku wixii uu indhihiisa qabanayeen bal waxaa laga qaadaya wixii indhihiisa qabanayeen aysan xogaa qabanayn aanan liidanin bayna dalika wax dhexdhexeeya ka qaad weeyaan wattaqi ka cabso dacwata almadluumi midka la dulmiyey dacwadiisana ka cabso oo hadduu ilahay kuu baryo waa kugu dhacaysaa wey fainahu qofkaas ma laysa baynaha wa bayna allahi xijaab midkaa la dulmiyey ilahay tabaaraka wa tacala waxbana uma dhexeeyaan wey hadduu gacmaha kor u taago arrinka waa baxar buxur waay waa lagu cabsadaa wey marka walciyaadu billah ilahay baan ka magangalnay inaan qof walaala aan dulmino oo markaas noo ilahay noo baryo wey fakadalika wal xataa hadduu gaal yahay waa dacwadiisa waa la aqbalaya wey dacwadiisa waa la aqbalaya waxaynu ka qaadan halkaas in qofka meesha loo diray in loo sii baaqo oo asaga wax akhbaar ka hayo inuu meesha tago fakadalika inuu isticdaad ugu jiro dadka uu la doodi doono in dad ahlu kitaab yihiin cilmi yaqaanaan cilmi leeyihiin fakadalika walaal waxaynu ka qaadanaynaa dadka marka ugu horreysa in loogu baaqa tawxiidka oo waxa kaloo dhan laga dhaqaajiyo fakadalika dadka inaan laga qaadin waxa aysha ku hayaan inaan ka qaadanay xadiiskaas عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي سعيد الخدري الله كان قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام حيري ليس فيما دون 5 أواق صدقة ولا فيما دون 5 ذواد صدقة ولا فيما دون 5 أوسق صدقة إن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال وحيري قال رسول النبي عليه الصلاة والسلام حيري ليس فيما دون 5 وحكى يرشم بيري 5 أواقٍ أو قيوا شيء إنه حاويان وأفرتن مركي وليبو أنا شغله أفرتن درهم أفرتن كله فشان ولا بقول 40 times 5 و 200 مركة 200 درهم قفك هدو هايستو وحاكو مركز وحاويان هدو وحكير هايستو لغا مرة بزكوي وحكير هدو هايستو أفر أواق زكا لغا مرة وليس فيما دون 5 ذواد 5 rati weliba markaas hadduu qofkaan haysto ama 5 halaad hadduu haysto wax ka yar asaguna lagama rabo way zaka weeyaan walaysa fiima duuna 5 aswaaq ciidan waxa ciidan u dhigantaa waa qofkii ratiyaasha aan sheegno 5 rati oo raran hadduu haysto wax ka yar asaga lagama rabo zaka weeyaan marka waajib waxay ku tahay 5 rati haddii u maaratay ay u buuxsamaan ee beerta ka soo go'aan fa calayhi an yatazakka wa inuu zaka iska bixiyo weeyaan waa zakada waa soo sharax qaabka loo bixinay عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة نبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم مسلم كدوشي سماها إنه كبه صدقه أدونكيس قفك أدونكو يا ولا فرسي فرسك أساريها مركا ما أنت فرسك حاوليكمو بابورت قفك وتوا وفي لفظ إلا وحكبه إلى زكاة الفطر في الرقيق
qofka addoonka wuxuu ka bixinayaa zakaatulfitri uu ka bixinayaa weeyaan. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. البخاري ومسلم. ابي هريره يقول العجماء خبار. العجماء حاليا لانها لا تتكلم، حولها انا هلين، حولها انا هلين عاكشه، حولها ما هلاوي marka xoolaha ama geel ama lo haduu geel maanta qof meel iska jiifo oo ku tunto qofkaas looma haysto waa geelaas ninka geel iska la dhimaayo inuu geelaadi baa ninkan asoo jiifo ku tuntay bixi. marka waa islaamku wuxuu dhahaa la damaanata fi wax damaana kama qaadi karo. lo-daadi baa soo baxday nin gabar meesha taagan oo xaamilo ah ay maartay geeskii waxay ku qaaday caloosha ka dhuftay ilmiga ka soo dhacay, looma haysto qofkii xoolaha iska lahaa wey. والبئر والنبي عليه الصلاة والسلام عيالك الله قضي بيها لقى عبنا جبار أصلا لو منها وحبر لقى مرة بوي وهدو قف كاس عيال انتو مالك قضي ومدى كعب بيسي قف دان سنة هدو كلها دعو ننكي قضي الله سوق قوار ما عندي عيالك هذا قضي كلها اللي ما يوم إلا هدي قف كدو ضيعات لي ما دو هالكيدوي أما ورتيها إمارة دو ضيع سنة اللي أجي هاي ضدك هدو كدره أو رتيها ضدك عنه تاس وقف أصلا كدره هالكاس وهالكيدا اللي قلت رياوي. وفي الركاز بقى شغنيو وفي الركاز بقى شغن حاول واحد كيدك ادو ميل دوره او بهجويا او اسكعيلا او قوم هره دغنا اي كغورين هدا wax keeshi dahab iyo fido waxaad bixinaysaa shantii meel hal meel bixinaysaa afarta kala jeebka gashanaysaa wayna ku banaan tahay weeyaan. waa tahay marka hadr buu yiraahdaa islaamku wuxuu yaqaanaa al hadr la shay fihi maartu waxba lagu malaha way daabadaas ee bahimadaas wax lagu leeyahay inaba ha yaraatee ma jirto weeyaan. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال حين بعث رسول النبي عليه الصلاه والسلام وحودر عمر بن الخطاب على الصدقه وحودر انه صعر بالزكاه فقيل وحالوي النبي عليه الصلاه والسلام منع ابن جميل انك اللي يراد ودي انه بخي زكاه يا خالد بن وليد ودي انه بخي زكاه يا والعباس وعم النبي عليه الصلاه والسلام ودي انه بخي زكاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري ما ينقم ابن جميل الا كان فقيرا فاغناه الله. ما ينقم أرجع وهذا الكناية أو محوك أرجوسنايا أو محاك قلدن محاك دعي وي إلا كان فقيرا ونك أصبحوا مت فقيرة أو فأغناه الله صو عيرة وحبنا يسمى بالله وحسيه نك محاك دعي وي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. محاك على دارنا خدكم مرك نجاب حي مرك عفوا سوري والله الله يبارك واتهي نحن مريني النبي عليه الصلاة والسلام ويري ابن عباس أنا كبحنا يزكدا مركا حديث النبي عليه الصلاة والسلام كسرناضي بينه مريني والنبي عليه الصلاة والسلام نك اللي يراد ابن جميل وحالي لا أسرع زكدا وديدي بل النبي عليه الصلاة والسلام حكوا هذا الأه محاك قلدن أو محا سكأه إلهي تبارك وتعالى سوى حمله يسنو شيده عيره شل إسلاه نبو فقيره إلهي فأغناه الله إلهي تبارك وتعالى غني بكذا يوم هضم بكذا واحد بسي. أما خالد بن وليد وتكحد قدبتينه وحو هيبة كيد الدين إلهي تبارك وتعالى أي رب حي. أما عباس فهي علي الدشيدة لبا الله معنا يا مركب فهي علي النبي وحكوا ذا لي هذا مر عضي عباس إن تاجر وقناع السوى هنتله النبي عليه الصلاة والسلام هنتله وبكسي هرمرين دي الزكاة إلا هرمرين كرو وأنت أنا السنة كل جارب وكسي قادري وأنا إذن هاي النبي عليه الصلاة والسلام وكوا ذا ويان مركز الزكاة هو واحد يأد ولا يلقوين آد نوقيا بدن قف كمركب بحيان وحدريمة راحة سعادة فرحة بدريمة محيا لي wax badan laga qaadi maayo wax yar oo adigana aad ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu dhawaanaysid at-taqarrub ila Allah ilaahay baa loogu dhawaadaa way ya ilaahay baa loogu dhawaadaa tabaaraka wa tacaala waana soo sheegnay cidii aanan hadda nagu soo biirtay qaab waxa la bixinayo iyo lacagta laga bixinayo zakaatul maalka iyo waxay tahay casharka ugu horeeya ku sheegnay waxa laga marka dib ugu laalaaban meen insha Allah tabaaraka wa tacaala Allah idin barakeeyo soo dhawaada dhamaantiin أردنا إن شاء الله تعالى مركز لما أيك أصل ضوبي دونا عشر كأسكو حيرا لكن ما أنت شرحات دون بان قد بنيني. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المزني رضي الله تعالى عنه قال وحويري لما أفاء الله على نبيه صلوات ربي وسلامه عليه يوم حنين نبي عليه الصلاة والسلام إلهي تبارك وتعالى مركي وأفر أسعلي قوشي اللي بنتي يوم حنين ها قسم وحو قيبي في الناس
dadka wuxuu u qaybiyey wixii markaas haniimadii ee la furtay yowma xunayn ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada u qaybiyey khaasatan wa fi lmu'alafati alquluub dadka qalbigooda lasoo dumayey dad waxaa jira islaamka cusub oo qalbigooda lasoo dumayey oo islaamka loogu baaqay marka mu'alafatu quluub baa qalbigooda marka waxaa la siinayaa wax badsi waa loo badinayaa si qalbigooda loo soo dumo walam yucdi alansaara shay-an nebiga ansaar shil ma siin ansaar waa kuwa marka dadku saxaabada waa laba nooc muhaajir nin soo hijrooday iyo nin ansaar ah oo min bayn alansaar oo min dimn alansaar oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu nusreeyey nebiga oo ka yimid kasoo hijrooday magaaladii maka almukarama magaaladii madiina markuu yimid raggii soo dhaweeyey ansaar baa lagu magacaabay oo diinta ilahay u gargaaran wey marka ansaar nebiga waxbaan ma siinin fakaannahum wajaduu fii anfusihim waxaad moodaa marka inay wax tabanayaan ragga saxaabada ka mid ah oo raggii caqliga badnaa oo weliba dee aad u qiimaha badnaa baa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalam waxay ku nebi allow ciddaan ka dhalanay ee ansaar tabashaa ka muuqato wax bay tabanayaan cabashaa jirto nebi wuxuu yihi hala ii jamciyo id lam yusiibu maa asaabana dadku waxay haleen ee gacantooda usoo gal ay kama soo gelin nebiga hala igu yeeruu yidhi faqadabahum nebigu u khudbeeyey marka calayhi salaatu wasalaam fa qaala wuxuu ku yidhi yaa macshara alansaar warree ansaarow kulankii ansaareeday alam ajidkum war miyaanan idin helin oo idin imaanin oo aan idinka helin dulaalan adinkoo baadi ah oo dalaal ku sugan fahadaakum allah ilaahay idin hanuunin bi ay bisababi aniga miyaanan sabab idin ahayn oo maaragtay ilahay tabaaraka wa tacaala uu maaragtay ilahay tabaaraka wa tacaala uu maaragtay uu dartay ku hanuunin nacam ilahay miyu aniga xaggayga hanuunin ku siinin wa kuntum aad ahaydeen mutafariqiina kuwa kala teegsan oo kala daadsan fa allafakum allahu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu isku soo dumay bi bisababtayda wa caalatan kuwa cayr ah oo waxbana haysan oo faqiir ah fa akhnaakum allahu bi markii diinta aad qaadateen ilaahay idiin keenay miyaanan diintan iyo khayrkaan idin soo gaarin qaaluu waxay dhahayeen allahu wa rasuuluhu amanu dheh allahu wa rasuuluhu amanu ilaahay iyo rasuulkiisa haa oo haa way nagu gallad leeyihiin haa oo haa ilaahay iyo rasuulkiisa way nagu manashayn karaan ayay dhahayeen qaala nabigu wuxuu ku yidhi alayhi salam markuu dhegaystay oo jawaabi waayeen maa yamnacukum war maxaa idiin diiday an tujiibuu rasuula allahi sal ly slam inaad nabigiina ugu jawaabtaan ilaahay rasuulkiisana u jawabtaan maxaa idiin diiday qaala wuxuu yidhi allahu wa rasuuluhu amanu ilaahay iyo rasuulkiisa wallahi waxay naga mudan yihiin mana sheegasho way nagu mana sheegan karaan wey nabiga marka wuxuu raa inuu qalbigooda ilaaliyo wuxuu yidhi haddaad ila jaalanji garanaysaan haddii aad ila tirsan lahaydeen waxaad dhihi lahaydeen low shi'tum la qultum haddaad doontaan waxay dhihi lahaydeen buu yidhi ji'tanaa waxaad noo timid nabi allow kada wa kada adoo saan ah oo lagu soo ceyriyey oo qax ah oo cid tolkaaga qurash ka soo cararay oo baxsanayo oo qaarkiid daa'if dhiig lagaa soo daadiyey oo soo cararay yaa noo timid baad dhihi lahaydeen haddaad aniga ila jaalanji garanaysaan ama ay ila tirsanaysaan lowla alhijratu haddaysan hijrad ahayn bu nabi calayhi salaatu wasalaam hee la kuntu waxaan ahaan lahaa imra'an min alansaari mid ka mida reer ansaar sharaf iyo cizi ka wan ma jiro walow salaka annaasu dadku hadday maraan waadiyan hadday waadi ku dureersamaan wa shicban ee gol iyo waabid ay maraan la salaqtu waxaan mari lahaa oon raaci lahaa waadiya alansaari wa shicbaha meesha ay ku dureersameen ay maraan reer ansaar baa mari lahaa taasi waa fakh iyo sharaf iyo faanitaan uu nabiga calayhi salam qalbigooda ku soo jiidanayo al ansaaru shicaar ansaar wuxuu yidhi waa dharkayga midda ugu hoosayso waa funaanadeeda oo kale ama marada garankayga oo kale weeye wannaasu dithaar dadkana dhar kora wey haddaanu qamiis baan wataa waxbaa iga hooseeyo marka funaanada iga hooseyso oo way iga sokaysaa jirkay kale nabiga marka wuxuu ku laha ansaaray adinku dharka dadku waa iga hoos sokaysaan dadka kalena kor bay iga xigaan ansaar wuxuu ka dhigay inuu yihiin dharka gudaha ku jiro ummadda kale wuxuu yidhi kor bay iga saaran yihiin innakum adinku satalqowna waxaad la kulmaysaan bacdii gadaashayda atharatan duudsi
حقنا الاندودسين دونا حتى تلقوا إلا إلى كلنتان على الحوض إلا إلى كلنتان حوض كي صبر أي النبي عليه الصلاة والسلام أنصار كلها هل كان كفهمينا صلوات ربي وسلامه عليه سيدو أولاد دار من أنصار